الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا شرفت لك سو هذا بروجرام كي نولا شربتها وبدنا كي صباحا الخير Education Guidance Center ما أنتوا عتارك لو عتني استقال بيش دحاد لبكم تمن استقالك بدنا بروجرام كواحد براتين إن لو براروجي لو عيقلية ومدة الصوماليات حالة نبتة ما أنت nin walaalkeenna oo Soomaaliyeed oo iskuul raan u shaqeeyo ayaa arrin ku dhacday arrintii buu iga sheekeeyey wuxuuna iga codsaday inaan la qaybsado ilaa nabigeena suubana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi midkiin Allah subhanahu wa ta'ala ma rumaynin إلا أوه وأستغل جعله ولكن كلا جعلاده ولكن حقوق دبا كنا عاي دبكي وربعين ونوجد ديجو دبكا سواء سكول رانكو مركو ودي با شلي عرورت يركا ولا كحيني أي دجيان ويل كمدا أي بدنا الباب كان لغفرة وإذا سجودها قدرته كفرته جودها مركو قال الباب كالصح يرمو ayuu wiilkan gaariga wadaa iskuul raanka wada Soomaaliga ah wiilka shal markuu gudaha galay ala kullu hooyis meesha kuma arkin waxa ka furay diris deena hal saac meesha joogiyo istaran dhahayo iska oynayo hooyisa marka dib imaadeen hooyis waa naqdiyo markaan adi ala kullu xaal kansalki ayay u gudbisay dacwo email ay u dirtay لا شرفت له إيميل كمركا يودرتي وهاي نقطة أرنتي إن لو صوبية investigation بارتاني لو صوبية وهي دعاي لما يشعروا غير أيها لقطة وضيع مي مركا ويل كساك مركو جاري كحيي وماشى تغي سكول كي نا كإمادي متقانا هونسلو ومانجرada كميدا أيها إمادي waxyaalo ii sheegay waxa kamid ah ummadii inay ka digtoonaadaan u baahan marka koobaad waxay tiri gaariga caruurta calaamada la saaro oo school bus sign gaariga ma wadanin wiilka Soomaaliga wuxuu yiri dhowr jeer baan managerada u sheegay schoolka kuwi gaariga iska la u sheegay maalin kasta waxay leeyihiin bariman keenayna tiideed waa lagu qabsaday horta baa kale lagu qabsaday yellow jacket wiilka ma uusan xirnayn yellow jacket walaalaha sharafta la ma xirnayn taadna lagu qabsaday waxa lagu qabsaday oo kale gaariga every 2 weeks ayaa la dhaqaa marka gaariga meel kasta ay ka egto marka wuxuu yiri wiilka soo socdo ayuu ahaa in la dhaqo gaariga ma naqdeen waa laga qoray waxa la weydiiyay waraaqiisa kale oo incident report la dhaha gaariga ku dhax jiro ma uusan haysan waxa la weydiiyay insurance-ki MOT weeran ma haysan waxa ka sii daran gaariga marka istiga eegtay gabadha istikaha oo BCO gaariga la saaro taksiga ah oo iskuul raankana la saaro markii baski la eegay waa dhacay bil iyo nus ka hor ayuu ka dhacsanaa wiilka marka wuxuu yiri warkii kooban laysinka baa leeyahay qortay kuwa kansalka waa isku maqan yihiin deesaga hadda laysinkiisa waa iska 50-50 laakiin waxyaalo badan asaga qalad lahayn iska jiro de company uu leeyahay laakiin asaga waxa Soomaalidu iska aamin badan tahay moogta wuxuu iska aaminay managerada inay wax ka sahagaajisay waxa kale oo weydiin in ilmaamay company-ga shahaado oo training ma ku siiyana la yiri markaad bilaabaysid shahaado ma lagu siiyay oo waxa jirta health and safety-ga company-ga u shaqeynaysa markay ku baraan ka bacdi waxay ku siinaa certificate ma yiri la sharafta leh meel kasta joogtaan ku soo dhawaada waa programkii nolosha dhabta ummadda Soomaali aan isku dayayno inaan wax way ka bedelno wala run ahaantii
oo dhanka wanaagga loo bato insha allah alaa kulli haal wiilkaa imisa isugu tagtay shahaadadii oo kambaniga oo health and safety-ga ahay oo train lagu sii weligiis lama siininba hore baa la yidhi gaarihii ka wata kambaniyaasha aaminin waxaa la yidhi yaalowga ma qabtid waxaa lagu yidhi calaamaddii saynka oo iskuol baaski kuuma saarno waxaa lagu yidhi gaariga ma taqaanaa ma dhaqnayn si fiican waxaa lagu yidhi istikaa markuu dhacsanay darawal baa dahaydi maxaad u eegi weyse marka wiilkan soomaaliga oo wanaagsan oo sharafta leh oo xadiidka aaminsan laa yu'minu axadukum xataa yuxibba liakhiihi maa yuxibbu linafsih nabigeenna suubani sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi midkiin ma aaminayo oo alla ma rumaysano qofkaas asaga oo asaga wuxuu jecel yahay walaalkiis la jeclaana dee walaalkeen nin ku xamaalanaya laysanka waa b c o dhibkaan markuu ku dhacay hadda ummaddeena soomaaliya wuxuu ugu digayaa war wax kasta waa inay meesha kugu jiraan gaariga inshuranskiisi ma taqaanaa certificatekaadii waraaqdii oo ma taqaanaa b c ogi wixii oo dhan waa inay gaariga kugu jiraan badanaa ummaddeena soomaaliya waxaa la iska aaminaa kambaniga oo la dhaha war kambanigan wax kasta waa iska rajiskaraysiya dhib ma lagaas maanta wiilkan dhib bay u keentay dhib ma leh dhib ma leh maanta dhib weynay u keentay yacni ilaahay kolley waxaan u baryaynaa inuu u sahlo laakiin laysankiisa dee waa nin bil iyo nus wadi gaari aanan b c o aan lahayn oon loo soo goynin oo bil iyo nus wadi qofkii manajerka ka ahayn wuxuu ku leeyahay gaariga wax kasta waa qabaa marka koobaad waxaan ku baraarujinaa gaariga istikiisa markas iska eg gaariga istikaa markas iska eg shahaadadii lagu sii gaariga ku wada incident report waxa laa jiro wax kastoo dhaca meesha kugu jireena mataqan qofka kambaniga iskalo iskuol raankan la hadlago dadka badanaa taksiilayaasha ayaga waxooda kale waa organized laakiin ragga iskuol raanka wada oo kambaniga run ahaantii mataqaana u shaqeeyaan la hadlaya dadkaas ayaga ah email iigu soo dirdhe wax kasta email iigu soo dir waa inaad dhahdo qofka manajerka ah insurance kuu soo diro mot kuu soo tigo mataqaanaa waraaqdaada certificateka inaa haysatid wax kasta waa inay diyaar ku yihiin markii lagu istaajiyo aad wax kulli ka jawaabi kartid istikaa weliba iska eeg istikaa kambaniga badanaa ma eegaan dadka waa mashquul waa dad lacag la raadinayo intaasoo shaqaala u shaqeeyey wakti uma hayaan waxaan adiga mar iska ilaali wiilkaas walaalkeen wuxuu yidhi weligayba maba iska eegin buu yidhi mana eegayn maanta dana kama dhiganaynin wax kas diyaariyahaa tanayn liima siinin laysankan gey koobiyaa laygala baxay shaqada hore ka bilaaba la dhahay maanta kambanigana shaqada waa laga joojago official shaqada waa laga jooji maanta kambaniga asaga ahaa wiilkana dee mataqaanaa shaqa maba haystaba laakiin laysankiisu hadda ka walwaliyaa marka walaalaha sharafta leh waxaa weeye iska ilaaliya halays ilaaliyo oo sharciga intii tabartaada ku dhaqan insha allahu tacaala intaasaan kusoo koobaya walaalkeena aan u ducooyno inuu wax kasta ilaahay mataqaanaa iis ugu dhigo ilan waa nin xadiidka aaminsan oo laa yu'minu axadukum xataa yuxibba liakhiihi maa yuxibbu linafsih fiiri nabigeena suubana sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas wiilkaan aaminsan uu yiri dhibkaan ay ugu dhacay ninka walaalkii anina waxaan jeclahay carruurtayda maanta biilaan inay noqonin oon shaqaysto oo lacag helo marka walaalaha sharciga ka boodayo oo iska aaminaya kambaniyaasha iskuol raanka oo intay u tagaan iska aaminayo walaalahaas ha is ilaaliyeenuu yidhi waxaada dhan waa inay mataqaanaa gaariga kuugu jiraan marka khayr allah insi intaasaan kusoo koobaya baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr aljazaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu